halkani waa agaarka argada lamba afar ee magaalada Muqdisho waxaana uu maamul gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda gaadiidka dawladda oo si xamar ay ka fulinaysaa howlgal lagu burburinayo dhismooyin sharci darro oo laga dhisay halkani argada lamba afar ee magaalada Muqdisho waxaana ay qayb ka tahay howlgalka uu maamul gobolka Banaadir ilaamiyay in lagu burburin doono dhammaan dhismooyinka sharci darrada laga dhisay dhulalka danta guud ee gobolka Banaadir ku yaala sidoo kale howlgalkan ayaa barbar socda howlgalo uu maamulka gobolka Banaadir sheegay in lagu burburin doono dhismayaasha sharci darrada ee laga dhisay goobaha danta guud iyadoo howlgalkani uu soo kormeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejnayiriisow isagoo u korgalay sida uu howlgalkaasi u dhacay waxa uu diray fariin ku aadan in uusan maamulka aqbali doonin in si sharci darro ah loo isticmaalo hantida danta guud caawa ujeedaan maamulka gobolka Banaadir isagoo awaamirtii horay u bixiyay ee ahaa in goobaha danta guud ee jardiinooyinka ay noqdaan goobo dan guud ah isla markaana bilicdii magaalada ka qayb qaadata caawa ujeedaan jardiinkii number 4 in dhismayaashii ku yaalay oo maqaayad iyo xafiisyaba ahaa caawa halkan aan ku burburinayno iyadoo ujeedaduna tahay in bilicdii ay soo laabato jardiinka tanna waa mid naga go'an sidii caasimaddan ula tartami lahayd caasimadaha adduunka inay laga maarmaan tahay in la helo goobo bilic ah oo jardiinooyin ah marka horeyna digniin waa u siinay muddana waa u qabannay hadda wixii ka dambeeyna qorshahan waa siduu noogu bilowday waxaan rajaynaynaa goobaha dhimanna in sidaan oo kale si qurux badan ah ay noogu dhici doonto waxaan kaloo rabnaa shacabka inaan uga mahadcelino sida ay u soo dhoweeyeen tallaabadan bilicda loogu soo celinayo caasimadda waxaan ka rajaynaynaa inay nagala shaqayn doonaan sidii goobahaas aan u wada quruxsan lahayn isla markaana bulshada loogu adeegi lahaa goob allaale goob dan guuda ma rabno in dana gaara loo isticmaalo goobtan oo kale hadda muddo ayaa maqaayad iyo dad dana gaara u isticmaalayeen maanta wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa goob dan guud loo isticmaalo bulshada yeeshaan jardiinooyinka iyo quruxda iyo bilicdana caasimadaha adduunka oo aragteen marka annagana horumarka iyo amniga soo roonaaday waxaa qasab nagu ah maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay inaan u istaagno waajibaadkana loo egmaday inaan bulshada u adeegno goobaha danta guud ee bulshadana ay noqdaan goobo dan guud waa mahadsantiin maamulka gobolka Banaadir ayaa horay ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo bulshada ku nool gobolka Banaadir inay ka fogaadaan dhismooyinka sharci darrada ee laga dhisay dhulka danta guud Nuur Saciid Khalid warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho